ما جعل يا أباهي mahadsanid wuxuu ahaa mid faqiiro oo aan guulaysan shaqo adag buu qaban jiray marka loo eego saaxiibada ee aabbayaashu ismanaan lahayn waa aabbo caqli badan tan ma lihid adugu iska dhig weligay xitaa si ixtiraam leh looma dhaqmin iskoolka waan ka habsaamay ay haddaan kacaya dhaqsanaya kan waa musaacahaagii kanna waa shaahshaah yaroo ku raaciyey dii anaa xaqu cagsiiso haddii wax la gaadho xilligaad cashuurta bixin lahayd keen kannaada bixiyey iskale kanna anigaa iskale horta maxayn taajir u noqon weyne yaa kugu yidhi taajir ma nihin taajir ahaanshuhu kuma xidhna intaad haysato balse waxay ku xidhan tahay inta aad bixiso sidaa darteed marka aad wax bixiso waxaad noqonaysaa mid faraxsan maan ahayn mid faraxsan mana aan doonayo inaan noqdo faqiir marka aan weynaado sida aabbahay oo kale waxaan doonayo aan ku rajo weynaa inaan ka fiicnaan doono aabbahay markaan weynaado isagoo marka aad u baahato lacag dheeraada miyaad imanayn xafladda dhoorashadeeda aabbo sanadkan maya ma imanayo sanadkan halkan shaqo cusub baan ka hayaa waxaa laga yaabaa sanadka dambe imaadada waan is arki doonaa hayaa hadda biisi baan waan ku salaamayaa bay bay sistii aabbahay amaaraysa maanta waxay waraaqahan iyo hay-adahan iyo waxaan la caawiyey iyo caawimaad anagu dadkan caawina yaa dad ciryaamin iyo handicap iyo yaa waxay ahayd inayo inkayna moodan waa joog waad ku mahadsan tahay maatikaaga cali waxay soo gaadhay warqad odhanaysa waxaad caawisay jaaliyadda jiniiska ee burco malaha si khaladayda ka soo baxda hadhow baan kuu sharaxayaa qofkaa doonaya inuu kula kulmee soo dhaha waad ku mahadsan tahay cali oo imaatikaaga aabbaha markasta nooga kaa sheekayn jiray aabbaha wuxuu markasta niiloosan jiray dhibaatooyinka naga haysa xagga nolosha waxaanu nagu ilaalin jiray rajada aanu ka qabno nolosha carruurtanu dhammaantood aad ay ugu xiiseen isaga wuxuu ahaa qofka keliya ee wejigooda farxad ka keeni jiray waxaan xusuustaa wiilkaa yar wuxuu ahaa mid rajo dhigay iskuulkana muu tegi jirin run ahaantii nolosha uu ka quustay balse aabbaha ayaa markasta buuggaa u akhriyi jiray haddana weynaaday isagoo noqday wiil dhammaystiran aabbahaa wuxuu howlgab noqday isagoo faraxsan haddana wuxuu go'aansaday inuu sii wato shaqadiisa si uu u caawiyo dadyow kale oo cusub aabbahaa wuxuu ahaa mid iskii wax u qabta taasina waa sababta aanu cidna ugu sheegan jirin xanuunkuu dareemayo master cali waxbaan doonaya inaan ku soo gaarsiiyo tani waa bilan sharaf muujinaysa si aad noo soo garab istaagtay magacaygaa ku qoran laakiin dee anugu maan bixin walaal aabbaha baa bixiyey manuu doonaya inaad ogaato waxa uu bixiyey
tan adigaa loo baxsaday tanna anigaa iskale You will be great man. Benta Mahadir. maanta waa dhalashadii aabahay waxaan u dabaaldegayaa siduu jeclaa inuu dabaaldego markuu noolaa mar kasta waxaa qalbigayga kusoo dhacaysa wadhahdiisii odhanaysay ina taajir ahaataa kuma xidhna inta aad haysato balse waxay ku xidhan tahay inta aad bixiso igraal noqo aabaha wanaagsani wuxuu ilmihiisa tusaa dariiqa wanaagsan